xuska sanad guuradii 29aad ee ka soo wareegtay aasaaska ciidamada qaranka Somaliland oo sanad walba la xuso 2 February ayaa maanta laga xusay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Munaasabada lagu xusay oo lagu qabtay taliska qaybta 12aad ayaa waxa ka soo qayb galay saraakiisha kala duwan ee ciidamada qaranka Somaliland. Waxa kale oo goobjoog ahaa maamulka gobolka Togdheer ka degmada Burco, taliyayaasha ciidamada asluubta iyo booliska ee gobolka Togdheer iyo mas'uuliyiin kale. waxaana dhambaal hambalyaal la wadaagay taliyaha qaybta 12aad ee aaga bari ciidamada qaranka Somaliland iyo taliyayaasha ciidamada asluubta iyo booliska ee gobolka Togdheer. waxaan halkan hambalyo uga dirayaa iyadoo ay maanta ku beegan tahay aasaaskii ciidanka qaranka 29 guuradii aasaaska ciidanka qaranka. waxaan halkan hambalyo uga dirayaa taliyaha ciidanka qaranka, saraakiisha saraakiil xigeenka alifleeyay dableey dhammaan ciidanka qaranka. waxaan leeyahay hambalyo waxaan leeyahay ilaahay hayna gaarsiiyo himilooyinka aynu leenahay. waxa weeye maanta u biqimayno waddankeena u biqimayno cadow waynu ku filannahay, waana midaynu diyaar u nahay waqti walba iyo goorka. taliyaha ciidanka qaranka jamhuuriyadda Somaliland saraakiishaas ilaa dable inta u dhaxaysa saraakiishaas Nuux Ismaaciil Taani ilaa iyo dable ciidanka qaranka sidoo dhan waxaan u dirayaa hambalyo farxad bay noo tahay maanta inaan inaga soo qayb galno sanad guuradii 29aad ee ciidanka qaranka, iyadoo ay sharaf noo tahay maanta inaan ila joogno halkan. nin kastoo cadowgii ah oo soo hungureysanaya markuu ciidanka qaranka ka naxaya, nin kastoo hadlaana waxba inaga qaadi maayo. taa waxaad maartay aad gelisaan inayna cidina wax inaga qaadi karin ilaahay mooyaane. waxaan leeyahay meel kastoo joogtaan ciidanka qaranka hambalyo. duqa degmada Burco Cabdirasaaq Hiiro iyo barasaabka gobolka Togdheer Maxamed Cabdilaahi Ibraahim Nafaqo ayaa u hambaliyay ciidamada qaranka Somaliland. guuradii 29aad aynu joogno waxaan jecelahay aad ciidanka qaranka tihiin, idinkana inta ay leeg baad ka rajaynaynaa inay ilaalisaan karaamada idinka rajaynaynaa, muwaadiniinta inay ilaalisaan baad ka rajaynaynaa. marka waa idin hambalyeynaa. salaanta dib ilaahay baa mahad leh. الله سبحانه وتعالى مسوى في ساكا إن الفجون بعضنا حفلة قيمها بدن سنة جورة السجارية لبعضنا عيد القرقة جورة Somaliland. سيدنا كروحان حمليين يا وبارك يا عيد الجورة قرقة جورة Somaliland وحمليين أمور يا شرن كعيد الكام يا دمان qaybaha kala duwan ee ciidanka kooban yahay, xaasaskooda iyo caruurtooda dhammaan waxaan leeyahay hambalyo. Axmed Shaafi, wararka telefishinka Sahan, Burco.